guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ayaa farin u diray warbaahinta kala duwan iyo bulshada adeegsata social media inay Ilaahay kaga cabsadaan oo aanay u adeegsan waxyaabaha ka hor imanaya dhaqanka suuban iyo diinta Islaamka. warbaahinta iyo xaaladaheeda waxaanu leenahay walaalayaal dadka warbaahinta gacanta ku haya waa laba nooc shaqaala iyo nooc mulkiile ah labadaba mas'uuliyad baa saaran ninka shaqaalaha inuu Ilaahaysa iyo aakhiradiisa ilaashado oo wixii xun iska ilaaliyo ninka mulkiilaahina inaanu wixii xun ka ganacsan oo ummadda u baahinin warbaahintu walaalayaal waa arin seef laba af leh oo kolba dhinacii loo adeegsado ayay wax u gumaada haddii xumaanta loo adeegsadana xumaan marka hore waa xumaan way xun tahay markaas xumaantu way xun tahay laakiin xumaan shakhsi sameeyay iyo xumaan warbaahin sameysay kala duwan xumaanta shakhsigu way kooban tahay laakiin marka warbaahintu waxyaabo sharciga iyo anshaxa khilaafsan ay samayso ummadoo dhan bay ku baahinaysaa min ufuqul caalam adduunka oo dhan mid gaal iyo mid islaamaba warkeedu uu gaaraya aqliga iyo aragga iyo qalbiga iyo garashada intaba waa la isweydiinaya waxaanu leenahay walaalayaal warbaahinta oo maanta si nasteexa u farayna wax badan baa social media ka buuxayno aragna waxa jira waxyaabo cidda markaa ku dhex jirta aad ugu qajilayso oo oranayso wartalo aqliga xakeebu tagay markuu wuxuu diin ahaan ku xun yahay dhaqan ahaan ku xun yahay bulsho ahaan uu dhib ku yahay qofka soo baahinaya u tafaxiidanaya u shaqo tagaya waxa soranaysa walaalka maxaa ka khaldan waxa kale oo aan bariyahan dambe aad u arkayno walaalayaal iyadoo social media oo guriyihii iyo waxa weeyaan dhex galay familiyadii oo dumarkii iyo qaybo kale ta la iska hor keeno aynu soo oranayno dadkiiba waa la isku diraya oo gabadhiba waxa la weydiinayaa in lagu guursado ka waran war gabar markii horeba loo taaglaa oo guurka ay waxa ka bacaysnayd marka adigu daaqada u soo dhigto ka waran hadii lagu guursado waxba tartay si reeraa dumise walaalayaal waxaanu ku nasteexaynayna dhammaan bahda warbaahinta wariirahaanu ka cabsoono waxay bogaadiyeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan waxaanay ku amaaneen doorkiisa ku aadan ilaalinta iyo anshaxa suuban iyo dhaqanka Islaamka waxaan runtii u mahad celinaynaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cali Mareexaan oo runtii intuu wasaaradda yimi aanu isleena wuxuu dareemay inuu markaa waxa weeyaan mas'uuliyad ka saaran tahay akhlaaqda ummadan iyo wanaajinteeda iyo waxa weeyaan horumarinteeda intaba waxaanu leenahay wasiir aad baad ugu mahadsan tahay inaad markaa waxa weeyaan aad akhlaaqda ummadda dareento inay mas'uuliyad ka saarantay waana shaqadii maanta lagu idmaday waana lagaala xisaabtamaya ilaahay waxaanu ka bareenaa halka toosan inuu ilaahay kaaga hagaajiyo boosiyashka warfaafintuna waa boosiyashin ballaaran waalacadi ama TV ama bahdi warbaahinta qaranka waxaanu leenahay mas'uuliyad aad u culus oo taa aynu ka hadlaynay social media ama warbaahinta iyo wasiirku saaran inaad dhigo nugulaato innakuna aanu ka wada shaqeyno wax badan oo runtii annagu aanu ognahayna aynu iska wareysano wanaagana aynu ummadda ku wada hanuunino ayaanu diyaar kula nahay inaanu kugula shaqeyno kula toosino ku waxa weeyaan aynu ummadda si siman ugu wada shaqeyno ayaanu diyaar u nahay ummadda wanaagana lagu hanuuniyo xumaantana marka looga yeero saaka waxaanu doonaynaa inaan ka hadalno waxaan la yiraahdo fawaaxishka sidaynu la socono walaalayaal fawaaxishku waxa weeye waxyaabaha baabi'iya qaranka ama ummad baabi'iya dambi weeye fawaaxishku waa garanaysaan dambiga dhacayna wuxuu baabi'iyaa dalka iyo diinta iyo wax walba uu baabiinaya uu kharaabinaya haddaanu markaa xuquuqaal nahay oo aanu nahay guddidii wanaag farista arinta inaan wax yaabaha jira idinka sheegno wax ayaanu u yar baahan waayo
haddaydan aynaan wada shaqayn oo aynaan wax xusuusin oo aynaan ka tashan arrintaas wax badan bay ina yeelaysaa waa ogtiin oo ma tirin karno maanta haddaynu sanaano dalka waxa ka jira tiriya ee fawaaxisha ma tirin karno haddaanu se qaar ka soo qaadano sida diincayga oo kale iyo ilaahayga iyo malaa'igta iyo dee waynu garanaynaa waxyaabihii hore halka joogeen berigii hore iyo imika sidaynu wax uga qabannay waa xusuusan tihiin waxyaabaha kalena sidaasoo kale aynu wax uga qaban karnaa haddaynu iskaashanno waxaanu markaa isugu nimi arrimada noocaasee ku saabsan fawaaxishka in aynu sidaynu isaga cirib tiri lahayn ama wax uga qaban lahayn ayaanu ugu nimi halkan inaynu ka wada tashanno aanu idiin soo baahinno sida haddaad tale iyo tusaaleediinna wax naga siinaysaan ayaanu u jeclaanay dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa dalka nin aan maxay ahaydee dee ajanabiyi ma joogee dalkeennii inaynu u kacno oo wax ka qabanno waxaa ina baabi'inaya fawaaxishkaas faraha badan inaynu wax ka qabanno warada isticmaasho midiyaha ama si gaar ah u isticmaalo ama si guudba ha u isticmaalee waxaan ugu nasteexaynaynaa addiinu nasiixa buu nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam walaalayaal naftiina u tur marka koowaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabsada marka koowaadna nafihiina u tura marka labaadna lafiina u tura marka saddexaadna ummadda u tura islaamka ah oo ummadda wax dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo iyo edeb darro iyo wax dadka kala geenaya wax isku dilaya ummadda ha ku dhex tuurin oo ha u baahinina ummadiina u tura arrinta kale waxay tahay wixii aad ka geyn weydaan ee wanaagsan ee hoga tusaalayna iyo nasteexa iyo sixitaana ummadda u gudbiya intaas waa si caama oo cidda midiyaha isticmaasha ama warbaahinta ku lug leh aan ugu nasteexayn ilaahay dirtii baan ugu nasteexaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabsada qadar maxamuud axmed khadar xeefo warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa